Xidig Real Madrid ah oo Lamine Yamal ugu hambalyeeyay kaalinta labaad ee Ballon d'Or. Weeraryahanka reer Argentina iyo Real Madrid Franco Mastentuano ayaa diiday in la barbardhigo xidiga Barcelona Lamine Yamal, isagoo sheegay in diiradiisu tahay u adeegidda kooxda iyo guulaha wadajirka ah ka hor inta aan laga fakirin abaalmarin shakhsi ah. Mastentuano oo hadlayay kadib guushii 4-1 ee Real Madrid ka gaartay Levante ayaa yiri: "Waxaan hambalyo u dirayaa Lamine Yamal oo kasbaday booska labaad ee Ballon d'Or. Waa ciyaaryahan weyn, mana u baahna qirashadayda." Wuxuu intaas ku daray: "Aniga ahaan waxaan isku dayaa inaan qofna layla barbardhigin, balse waxaan xoogga saaraa inaan u ciyaaro kooxdayda, waayo waxaan aaminsanahay in heerka shakhsiga uu ka yimaado bandhigga wadajirka ah." Xidiga reer Argentina ayaa sii raaciyay: "Haddii kooxda si fiican u shaqeyso oo aan hawsha si habboon u qabano, waxay caawisaa in ciyaaryahan walba uu muuqdo. Waxa muhiimka ah waa dadaalka guud. Arrimaha shakhsiga iyo isbarbardhigga waxay yihiin mudnaan labaad." Mastentuano ayaa haatan ku jira waqti gaar ah oo Real Madrid ah, kadib markii uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda, taas oo muujisay awoodiisa iyo riyooyinka mustaqbalka uu ka leeyahay kubadda cagta Yurub. Dhinaca kalena, Cole Palmer oo jebiyay rikoor uu Neymar dhigay 14 sano ka hor. Xidiga Chelsea Cole Palmer ayaa sameeyay taariikh kadib bandhigiisii Ballon d'Or ee sanadkan, isagoo kaalinta toddobaad kaga dhameystay tartanka abaalmarinta ugu sareysa kubadda cagta adduunka. Palmer oo 23 jir ah ayaa xil ciyaareedkii hore dhaliyay 18 gool, isla markaana caawiyay ka noqday 14 kale. 52 kulan oo uu saftay Chelsea iyo xulka England. Waxqabadkiisa ayaa ka caawiyay Blues inay ku guuleystaan UEFA Conference League iyo FIFA Club World Cup, halka uu sidoo kale kaalin muhiim ah ka qaatay inay kooxda Stamford Bridge dib ugu soo laabato tartanka Champions League kadib markii ay kaalinta afraad ku dhameysteen Premier League. Xidigii hore ee Manchester City ayaa sidoo kale si fiican ku bilowday xil ciyaareedkan, isagoo 2 gool dhaliyay 4 kulan oo uu saftay kooxda. Chelsea oo ah kooxda haysata Club World Cup ayaa hadda kaalinta 6aad ugu jirta horyaalka Premier League. Bandhigga Palmer ayaa taariikhda galay maadaama uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee tan iyo 2011 kaalmaha 10 sare kaga dhameystay Ballon d'Or isagoo aan ciyaarin Champions League. Neymar ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee sidaas sameeya isagoo u ciyaaraya Santos 14 sano ka hor. Abaalmarinta sanadkan waxaa ku guuleystay Ousmane Dembele oo PSG u diiwaangeliyay guushii ugu horeysay ee Champions League isagoo sidoo kale qaaday Ligue 1. Lamine Yamal ayaa galay kaalinta labaad kadib markii uu kooxdiisa ka caawiyay hanashada horyaalka La Liga, halka Vitinha oo PSG iyo xulka Portugal ka tirsanna uu kaalinta 3aad qabsaday, isagoo qayb weyn ka qaatay guulihii PSG iyo Nations League ee xulkiisa. Muxuu Alexander Isak ka yeeray goolkiisii ugu horeeyay ee uu dhaliyay Liverpool? Weeraryahanka reer Sweden iyo kooxda Liverpool Alexander